نبي أيوب عليه السلام wuxuu ahaa adoon alle karaameeyay dulqaad iyo imtixaan adag ayuu maray muddo ayuu ku noolaa nimco iyo barwaaqo balse hal mar ayaa waxa isbedeshay xaaladiisii waxa asiibay xanuun baabi'iyay jirkiisii kadibna waxa ka dhamaaday xoolihii sidoo kale waxa ka geeriyooday dhammaan ubadkii uu dhalay oo mid u dhintay dhibkaasi gaaray nabi Ayuub calayhi salaam waa uu ku samray mar walbana xaalad kasta uu ku jiro wuxuu ahaa mid alle subxaanahu wa ta'ala ku xamdiya magaciisana xusa xalqadan 12aad ayaynu ku soo qaadan doonaa qisada nabi Ayuub calayhi salaam intayna bilaabin qisada nabi Ayuub janaalka ku soo bir oo subscribe dheh bogga facebookna follow dheh nabi Ayuub magaciisa oo dhameystiran waa Ayuub ibn Musa ibn Saraha ibn Iswa ibn Ishaq ibn Ibrahim calayhi salaam wuxuu ahaa nabi suuban oo uu alle ku amaanay inuu ahaa samir badane u dulqaatay imtixaankii alle subxaanahu wa ta'ala nabi Ayuub calayhi salaam 4 jeer ayaa lagu sheegay magaciisa quraanka suurado kala duwanna qisadiisa si kala duwan ayay ugu soo aroortay ibn Kathir wuxuu yiri nabi Ayuub calayhi salaam wuxuu ahaa nin aad u hanti badan nooc walba oo xoolo iyo beera ah ayaa alle ku manaystay sidoo kalena awlaad badanna alle wuu u hibeeyay wuxuu ku noolaa magaalo la yiraahdo Xawraan oo u dhow deegaanka Shaam gaar ahaan dhanka Suuriya nimcooyinkaasi waxa uu si dheeraa inuu alle ka dhigay nabi uu waxyooday barwaaqadan ayuuna muddo dheer ku jiray kadibna alle ayaa u doortay inuu Ayuub imtixaamo calayhi salaam ilaahay ayaa abaar ka dhigay beerihiisii kadibna waxa baaba'ay xoolihiisii oo idil intaasi waxa uu si dheerayd in geeri ay asiibtay dhammaan carruurtiisii oo gaarayay 14 carruur ah kuwaasi oo mid hortiisa uu geeriyooday masiibadan ku dhacday awlaadiisii iyo hantidiisii nabi Ayuub calayhi salaam waa uu ku samray alle ayuuna ugu mahadceliyay imtixaankii alle halkaasi kuma joogsan balse waxa jirkiisii ku dhacay xanuun aad u daran oo baabi'iyay hilibkiisii ayaa waxa galay dheecaan midkaasi oo jeexay dhammaan xubnihiisii nabi Ayuub wuxuu noqday dhulyaal jirkiisa qayb ay u baabado dadkii ka agdhawaa ee ehelka u ahaa iyo kuwii uu qoodin jiray ayaa ka fogaaday iyaga oo diidanaa in cudurkaasi uu asiibo iyagana dadkii qadarinta iyo xushmada u hayn jirayna waa ay ka fogaadeen ilaa markii dambe uu xanuunku ku siyaaday jirkiisina uu dixri galay ee dadkii magaalada ay ku yiraahdeen nooga bax magaalada oo hanagu faafin cudurkan daran ee kugu dhacay ninkii waqti yar ka hor ahaa hantiilaha awlaad badan leh ayaa waqti yar ku noqday faqiir xanuunsan oo aan wax awlaad ah oo garab istaagta haysan qofka kaliya ee ku soo agharayna waxay noqotay xaaskiisii oo iyaduna noqotay qof ku samirtay xanuunka alla ku saliday ninkeeda nabi Ayuub calayhi salaam xaaskii nabi Ayuub oo la oran jiray Liya waxay Liya ahayd qof aad u qurux badan dhaqaalihii iyo dhaldhalaalkii badnaa ee haysteen waxay si siyaadin jiray quruxdeeda balse markii nabi Ayuub imtixaamku asiibay xoolihiina dhaafeen waxay noqotay haweeney sabool ah oo xirata dhar aan araga u roonayn waxay ahayd qofka kaliya ee ku haray Ayuub calayhi salaam dadkii kale waa ay ka fogaadeen xataa walaalihiis iyo ehelkiisii kalaba Liya waa ay ku samirtay xanuunka asiibay ninkeeda iyo sidoo kale dhimashada awlaadeedii waxay markasta ahayd garabka kaliya ee nabi Ayuub u haray calayhi salaam guriyaha xaafadaha ayay ka shaqayn jirtay si ay raashin uga soo hesho ay ku qoodiso ninkeeda bukaan jiifka noqday maalin ayay weydiisay nabi Ayuub nabigii Allow maxaad u bari weysay alle ha ka dulqaadee dhibaatadan ku haysata nabi Ayuub ayaa ku jawaabay imisa sano ayaa nimco iyo barwaaqo ku jirnay waxay tiri 70 sanadood wuxuu dhahay miyaanan 70 kale u samri karin dhibaatadan in lagu imtixaamay xaaskii nabi Ayuub Liya cimrigeedii ayaa weynaaday oo dadkii waxay u diideen inay ka shaqayso guryahooda waxayna garan weysay qaab ay ku keento cunto u quuto nabi Ayuub calayhi salaam waxay lahayd timo aad u dhaadheer maalintii dambe ayay tidicday timaheedii oo ay ka goysay qayb ka mid ah kadibna iibisay oo ku soo gaday cunto nabi Ayuub ayaa la yaabay meesha ay ka keentay cuntada maadaama ay dadkii diideen inay u shaqayso wuuna weydiiyay laakiin wax jawaab ah ma aysan siin maalintii xigtay ayay sidii oo kala samaysay nabi Ayuub ayaa mar kale weydiiyay meesha ay ka keentay lacagta waxay uga warantay in ay timaheedii iibisay nabi Ayuub markii uu maqlay arrintaas uu calool xumooday aad ayuu u murugooday sida Anas bin Malik ka wariyay suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee nabi Ayuub imtixaamkaasi waxa uu haystay muddo 18 sano waxa baaba'ay jirkiisii oo dheecaan iyo dixri u galay mar kasta oo uu alla xasuustana uu ku xamdin jiray isaga oo leh nimco ayaan haystaa hadduu weli ii nool yahay carab aan alle subxaanahu wa ta'ala ku xusi karo waxaa jiray 2 nin oo la dhashay nabi Ayuub calayhi salaam kuwaasi oo xilliyada qaar soo booqan jiray maalin ayay ku dul sheekaysteen midkood ayaa yiri Ayuub dhibaatadu waxay ugu raagtay waa dambi uu galay 18 sano haddii uusan xumaan weyn samayn lahayn intaasi oo dhan dib laguma fiirsan lahayn arrinta aad bay u xanuujisay nabi Ayuub calayhi salaam markaasi ayuu ku yiri ma garanayo waxa aad sheegaysaan
allase wuxuu og yahay inaan soo mari jiray laba nin oo murmaysa markaasi ayay alle magicii soo hadal qaadan kadib ayaan gurigayga ku noqon jiray waana ka kafaara gudi jiray aniga oo nacaya in alle waxaan xaq ahayn lagu xuso nebi ayuub calayhi salaam dhibkii ayaa aad u taabtay markaasi ayuu gacmaha sare u taagay wuxuuna dhahay ilaahayow dhib ayaa itaabtay adigaana naxariis badane ah nebi ayuub calayhi salaam markii uu soo xaajo gudanayo waxaa garbaha ka qaban jirtay xaaskiisa maalin xaaskiisii oo bannaanka ku maqan alle ayaa u waxyooday inuu lugtiisa dhulka ku dhufto waxaana ka soo burqamay il biyo ah kadibna waxaa la faray inuu ku qubaysto sidoo kalena uu cabbo markuu ku qubaystay waxaa soo noqday jirkiisii oo dhan markuu cabbayna waxaa caafimaaday calooshiisii ee xubnihii kale ee jirkiisa sidaasi ayuuna nebi ayuub ku caafimaaday allena cudurkii uga qaaday xaaskii nebi ayuub ayaa soo noqotay waxayna la kulantay nin dhallinyaro ah oo qurxoon markaasay weydiisay ma aragtay nebigii la imtixaamay ninkii ayaa la hadlay oo yidhi waa aniga liya markaasay yaabtay oo fajacday kadibna waxay u mahad celisay alle subxaanahu wa tacaala culimada taariikhda ayaa sidoo kale wariya in liya xaaskii nebi ayuub iyadana laga dhigay dhallinyaro allena sidaasi ayuu samirkeedii ugu abaalguday markii alle imtixaamkii ka qaaday wuxuu alle u soo celiyey ubadkiisii iyo kuwo la mid ah waxaana ilaahay ku manaystay xoolo badan iyo caafimaad wanaagsan wuxuu lahaan jiray laba kayd oo waaweyn oo uu raashinka beerihiisa ku kaydiyo alle ayaa uga buuxiyey dahab iyo qalin wuxuuna noqday mid ka hanti badan oo ka awilaad badan kana caafimaad badan sidii uu ahaan jiray ka hor imtixaamka alle samirka nebi ayuub ammaanta uu ku mutaystay waxaa sidoo kale sharaftaasi la wadaagtay xaaskiisii ee liya nebi ayuub wuxuu alle siiyey cimri dheer 70 sano ayuu noolaa kadib markuu ka bogsaday imtixaamkii alle wuxuu ahaa nebi dadka ugu yeera xaqa iyo cibaadada wuxuuna ahaa mid dadkii uu ka dhashay mar walba xaqa ugu yeera waxaana la sheegaa in dadkii ula deganaa wakhtigaasi ay u badnaayeen dad wanaagsan oo haysta diintii nebi ibraahim calayhi salaam nebi ayuub qabrigiisa meelo badan ayaa lagu sheegaa inuu ku yaallo goob ku taalla buuraha alqaraax ee dalka cumaan ayaa lagu sheegaa inay tahay xabaashii nebi ayuub calayhi salaam sidoo kale goob kale oo ku taalla magaalada urfa ee koonfurta turkiga ayaa waxaa ku taalla goob lagu sheego inay tahay goobta uu ku aasan yahay nebi ayuub calayhi salaam alle ayaana ku cilmi leh sida xaqiiqda ah أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما